waxa shalay dhacay waxaan ku tilmaami karnaa musiibo aan ku tilmaami karnaa wax dawlad Soomaaliyeed dad shacab ay kula kacdo wixii ugu darnaan ku tilmaami karnaa sababtoo ah dad hadda ma taqaana waqooyi galbeed jooga oo dacwoonaya waxay ka dacwoonayaan xasuuq loo geystay 88 annaga xasuuqi 88 oo kala la damacsan yahay sida hadda muuqata sababtoo waa bilaaw waana la taabanaa xilli kasta waa taabasho wax laga xumaado waaye boolisku waa hay'ad dhowrta bulshada ma aha hay'ad lagu burburiyo mujtamaca dadka hadda shar meesha yimiday ee weerarka soo qaaday ee ma taqaana dadka masaakiinta xasuuqaya ee ku soo dheelmada salaada subax markii la dukaday waa dad booliskuna waxa la rabaa inuu sharciga ilaaliyo kala dambeynta inuu ilaaliyo nabadgelyada inuu ka shaqeeyo ma aha cunuga dhagax tuurayo inuu ugu jawaabo baasuuke iyo inuu ugu jawaabo xabad shiike iyo xabad dabajeex laba dagaalamay cadow rasaastu waxay u baahan tahay meelaha ay ku haboonta in lala aado ma aha in shacab lala soo aado ma aha dad dhulkood in lagu dhaco ma taqaana waxa la yiraahdaa sarqatu timsaax ama ooyinta yaxaaska ra'iisul wasaaruhu meelaha ma taqaana uu yimaado tiishu qaata ooyin iska tiraa wuxuu isaga tiraa waxa waaye yaani gudbi dareenkaaga si emotional ah inaad yaani tahay qof oo ma taqaana dareenka la qaybsanaya dad kale ama qoomiyada kale war dadka la xasuuqay Soomaali waaye waa dad deegaan degan ma fiicna ma haboona waxa fiican ooyintaadu in ay qusayso dalka localka ah oo madaxda ka taa ma aha dadka dibadda madaxweynaha waxaan leenahay madaxweyne dareenka dadkaaga inaad la mid noqoto la rabaa inaad tacsiisaa la rabaa dadkii ka horeeyay oo madaxda ahaa ee xukunka ku dhiibay way tacsiinayaan wayna ka xun wax dhacay way adiga u tacsiin laada waa sharaf darro waa qiimo darro yaani taas waxayna tusay inaad wax raali ka tahay ina tusay waa dhibaato meeshan waxaan maqlaynaa in ma taqaanaa wakaalada wararka ee Soona radio Muqdisho telefishanka waxaan in loo gudbiyay 3 qof oo dukaamo dhacaysa in la xabadeeyay oo ma taqaanaa booliska oo 3 qof meesha ku dhaawacay waxaas waa been ilaah looga fogaado arintaas waxa waaye waxa meesha ka dhacay hadii aan sheegno 5 cisbitaal aan booqanay 5 cisbitaal ba dhaawacay yaala waxa la radaa beenlowga qof dhintay iyo qof dheer oo marqaati u qabsada anaga dhaawacadan inta yaalaan meetin intu yaala been ma sheegayno dadka dhaawacmay 14 qof aan ku haynaa waxa ugu horeeyay Cabdicasiis Axmed Barre waxa ku xigay Najiib Hagardiid waxa ku xigay Cabdullaahi Maxamed Xasan Muxsin Cismaan Faarax Maxamed Shariifow Cabdiraxmaan yarkaas cajiinka lagu ninaasaa waliba waxa la sheegay in beerku go'an yahay qayb kamid ay go'anta oo xaaladiisu halis ay tahay waxa kale oo meeshan ku jira Cabdifataax Ali Cabdi waxa kale oo jira waxaan maraa 7 qof Cabdullaahi Maxamuud Macallin qofka 8 waaye Cabdiraxmaan Maanka nin la yiraahdo 8 ka ah Axmed Nuur 10 ka ah Cabdiraxmaan Shamuure nin la yiraahdo wuxuu ka yahay 11 Cabdirasaaq nin lagu sheego Sabiya oo 3 sano jira kamid dadka xabadda heshiiku ku dhacdo musiibo waaye waxa kale oo kamid ah nin waayeela oo gurigiisa fadhiya oo soo wiisa qaadana xabadda ku dhacdo Xaaji Maxamuud waxa kamid ah Cabdullaahi Xasan Cagey oo shalay noogu yimiday family bag oo dhaawacyo tiro badan ay ka muuqdeen oo ma taqaana garabku jaban yahay oo culeysyo tiro badan haara ka muuqdaan waxa saas ugu leeyahay waa booliska amaankiisa ilaalin lahaa waxa kale oo meeshan yaala dhimashadu waa soo tare markii hore 4 noo ahayd hadda laakiin waxa la ii sheegaya oo xiriir ii sheegaya in dad kale oo dhimasho ay soo baxayaan dhimasho ilaa 6 qof ay sii maray hadda waxa la rabaa marka dadkaas dhintay iyo dadka dhaawaca dawladda mas'uulka ah waxa la rabaa ka dhaawacana inay daaweyso hadii dawladdu jirto waay ka dhaawacana inay daaweyso midka dhintayna inay xaaje ka gashaa la rabaa sababtoo ah waxa dhimanayo waa dad Soomaaliyeed waxa dhaawacma waa dad Soomaaliyeed dadka dhintay magacooda waa sheegi karnaa waxa kamid ah Macallin Sabriye lagu tilmaamay Axmed Faarax kamid ah Maxamuud Nuur Leer kamid ah Xaaji Gacala kamid ah iyo dad kale aan magacooda hadda aan haynin labada qof hadda gadaal noo soo sheegay eheladooda waa la helaa dadka qaar la duugay cunuga la duugay yaro saqiira waa la duugay dadka la duugo ku jira dadka kale ehelka ka muuqay inaan raac ku sameeyno u baahan tahay dadka la duugay dadka qaarna way yeelaan meydkooda wali in la arko waa suuragal waxa kale oo jira dad dhaawacooda halis ah isbitaalada yaala waxa jira qof oo beerku go'an yahay qof dhabarka ugu taala jiro dhabarka jaban dad badan oo saas isbitaalada yaala ma qarinayno waa sheegaynaa isbitaalada waan hor loo sheegay waa la carbaabay 5 isbitaal dadkaas ku jiraan waxay noqon karaan wax xaqa marka ma taqaana la isku inkiro laakiin hadda taan inkiraad ma jirto boolisku wax uu inkira annaguna wax adan haynaa isbitaalada dhaawac yaalaan waa soo bandhigi karnaa ha waa yaalaan dhaawac waa yaala waa keeni karnaa
بوليس كان نوي مدي معلم هذه نوي مدي ورقف قباتي ونقولها الله وأنا نقلبت وركان أنا كدم بورقة وحلا صوتورة أيضا تاسع نقول جوابي waxaan ugu jawaabaynaa mataqaana qoraalka oo mataqaana taliyaha booliska uu soo gudbiyay in waxa uu ka hadlaysan xaq ahayn baan yihiin sababtoo ah dhaawaca uu sheegay waa 3 qof waxaan haynaa 14 qof qoraalkan haynaa dadka magacyadooda cisbitaaladana waxayna waa tusi karnaa waxaan haynaa mataqaana wax cad warqad cad dawladdan u cabanaynaa hadii dawladda cabashadan ay wax ka qaban weysana deegaankan difaaciisa si shal u socona man istaagayo وما سنتهين وركن أنتاس واي وحكلوا أنتاس دير سيد حرية هذا وكشيء جاي ضدك داوعة وضد أنا جنا داوعمي واحد الشرع دعاي وحن كتر ما مكرنا مصيبة كتر ما مكرنا واحد دولة صوماليات ضد شعب أي كل كعضو وحي قدرنا كتر ما مكرنا صوبته ضد هذا متقنا وقوي قلبيت جوجا ودعونا يا وحي كدعونا يا حسوق لوج يستسيدتني سيدي annaga xasuuqi 88 oo kala nala damacsan yahay sida hadda muuqata sababtoo waa bilow waa nala taabanaa xilli kasta waa taabasho wax laga xumaado waay boolisku waa hay'ad dhowrta bulshada ma aha hay'ad lagu burburiyo mujtamaca dadka hadda shar meesha yimiday ee weerarka soo qaaday ee mataqaana dadka masaakiinta xasuuqaya ee ku soo dheelmada salaada subax markii la dukaday waa dad booliskuna waxa la rabaa inuu sharciga ilaaliyo kala dambeynta inuu ilaaliyo nabadgelyada inuu ka shaqeeyo ma aha cunuga dhagax tuurayo inuu ugu jawaabo baasuuke iyo inuu ugu jawaabo xabad shiike iyo xabad dabajeex laba dagaalamay cadow rasaastu waxay u baahan tahay meelaha ay ku haboonta in lala aado ma aha in shacab lala soo aado ma aha dad dhulkood in lagu dhaco ma taqaana waxa la yiraahdaa sarqatu timsaax ama ooyinta yaxaaska ra'iisul wasaaruhu meelaha ma taqaana uu yimaado تيشو قاطع أو ينو سكترا وحو سكترا وحواية يعني جود بدرين كاغا سي ميشنال إن يعني تهاي قف أو متقانا درين كلا قيف سنة يدت كلا عم قوم يذكره وردت كلا حسوقة الصومالي واي وردت ديجان دكن ما فينا ما هبونا وحافي عن أوينتا إن أي قصيصة ذلك لو كالكاه ومدح ذاكته ما هذا كدي بدأ مدحوينا وحن لنا مدحوينا درين كدت كاغين الله من قتال رباه إنها تعسيس الربا ضدك كهري أو مدحض هاي حكم كودي بي ويتعسينا يعني وين كحني واحد عاية ويا ذي أو تعسين لا ذا وشرف ضره وقيمة ضره يعني تصوح إن تصين هذا حرالي كتها إن حرالي كتها إن تصين ودباته ماشان وحان مغلينا إن متقانا وكالة ورك إيصونا راديو مقدشو تلفزيون كا واحد إن لو جود بي سدح قف أو دكان مدعيس إلا حبذيي ومتقانا بوليس كأو تسدح ناس قف ماشي خد وعي waxaas waa been ilaaha looga fogaado arintaas waxa waaye waxa meesha ka dhacay hadii aan sheegno 5 cisbitaal aan booqanay 5 cisbitaal ba dhaawacay yaala waxa la radaa been lowga qof dhintay iyo qof dheer oo marqaati u qabsada anaga dhaawacadan inta yaalaan meetin intu yaala been ma sheegayno dadka dhaawacmay 14 qof aan ku haynaa waxa ugu horeeyay Cabdicasiis Axmed Barre waxa ku xigay Najiib Hagardiid waxa ku xigay Cabdullaahi Maxamed Xasan Muxsin Cismaan Faarax Maxamed Shariifow عبد الرحمن يركز عجين كاللغون ناسا ولي وحالي شيء إن بيركو جوانيه قريب كم إذا يجوانته وحالتي سهالة سيتها وحكلو ماشي عن كجرا عبد الفتاح على عبدي وحكلو جرا وحن مرة تضبقف عبد الله محمود معلن قف كسيدات واي عبد الرحمن مان كان اللي راه سيدات كأه أحمد نور طبعا كأه عبد الرحمن شموري اللي راه حكي كوبي طبعا عبد الرزاق اللي وش يقول سبية أو 6 سنة جرا كم إذا ذاك حبذا يشيكو كل عضو مصيبة واي waxaa kaloo kamida nin waayeela oo gurigiisa fadhiya oo soo wiisa qaadana xabada ku dhacday Xaaji Maxamuud waxaa kamida Cabdullaahi Xasan Cagey oo shalay noogu yimiday family bag oo dhaawacyo tiro badan ay ka muuqdeen oo mataqaana garabku jaban yahay oo culeysyo tiro badan haara ka muuqdaan waxa saas ugu leeyahay waa booliska amaankiisa ilaalin lahaa waxaa kaloo meeshan yaala dhimashadu waa soo tare markii hore 4 noo ahayd hadda laakiin waxa la ii sheegaya oo xiriir ii sheegaya in dad kale oo dhimasho ay soo baxayaan dhimasho ilaa 6 qof ay sii maray hadda waxaa la rabaa marka dadkaas dhintay iyo dadka dhaawaca dawladda mas'uulka ah waxaa la rabaa ka dhaawacana inay daaweyso hadii dawladdu jirto waay ka dhaawacana inay daaweyso midka dhintayna inay xaaje ka gashaa la rabaa sababtoo ah waxa dhimanayo waa dad Soomaaliyeed waxa dhaawacma waa dad Soomaaliyeed dadka dhintay magacooda waa sheegi karnaa waxaa kamida macallin Sabriye in lagu tilmaamay
أحمد فارح كميدا محمود نور نيلر كميدا حاج على كميدا يدك كل أنا مقعد هذا أنا هنا لبض قف هذا قدام نلاص وشيء إهلده والهلا dadka qaar la duugay cunuga la duugay yar saqiira waa la duugay dadka la duugo ku jira dadka kale ehelka ka warhay inaan raac ku sameeyno u baahan tahay dadka la duugay dadka qaarna way yeelaan meydkooda wali in la arko waa suuragal waxa kale oo jira dad dhaawacooda halis ah isbitaalada yaala waxa jira qof oo beer ku go'an yahay qof dhabarka ugu taala jiro dhabarka jaban dad badan oo saas ah isbitaalada yaala ma qarinayno waa sheegaynaa isbitaalada waan hor la waa loo sheegay waa la carbaabay 5 isbitaal dadkaas ku jiraan waxay noqon karaan wax xaqa marka ma taqaana la isku inkiro لكن هذا تان إنكراد ما بيجرتها بوليس وحبو إنكرا أنه نروح عضن هنا إسبتال الله داوعي ديالا وصوبني كرناها ويالا داوعي ويالا داوعي ويالا وكين كرنا بوليس كان نوي مدي معلم هذه نوي مدي ورقف جباتي ونقولها الله وأنا نقلعت وركان أنا كدم بورقة وحلا صوتورة أيضا تاسع نقول جوابي waxaan ugu jawaabaynaa mataqaana qoraalka oo mataqaana taliyaha booliska uu soo gudbiyay in waxa uu ka hadlaysan xaqayn baan yihiin sababtoo ah dhaawaca uu sheegay waa 3 qof waxaan haynaa 14 qof qoraalkan haynaa dadka magacyadooda cisbitaaladana waxayna waa tusi karnaa waxaan haynaa mataqaana wax cad warqad cad dawladdan u cabanaynaa hadii dawladda cabashadan ay wax ka qaban weysana deegaankan difaaciisa si shal u socona man istaagayo وما سنتهين وركن أنتاس وايه وحكلوا أنتاس دير سيد حرية هذا وكشيء جاي ضد كداوعة وضد أنا جنا داوعة مي